inaad fahanto raaxada gabdhaha ay jecel yihiin ma ahan wax adag. U sameey sidan galmada noocan ah gabdhaha waxay ka helaan raaxa aan caadi ahayn. Marka hore waxaa fiican inaad isweydiiso waa maxay raaxada gabdhaha ay jecel yihiin. Maxay jecel yihiin gabdhaha? Jawaabtu way fududahay. raaxada gabdhaha ay jecel yihiin. Haddii aan nahay gabdho uma baahnin wax kale kaliya in loo sameeyo raaxo noocan ah. Waxyaabahan soo socda markii ragga ay inoo sameeyaan waxaan ka qaadnaa raaxo aan caadi ahayn. Ragga qaar waa kuwa yaqaano waxa aan jecelnahay, balse waxaa jiro kuwa badan oo ku jahwareersan raaxada gabdhaha ay jecel yihiin iyo sida ay ugu raaxayn lahaayeen. Taasina ma ahan wax fiican. Gabdhaha intooda badan waa kuwa xishood badan, laakiin taasi macnaheedu ma ahan in aysan raaxo idin kaga baahnayn. Gabdhaha qaar waa kuwa aad u dareen badan, sidaas ay tahayna idinma soo bandhigi karaan rabitaankooda, laakiin waxay idin muujin karaan in ay jecel yihiin raaxo bilaa hagar ah. Gabdhaha waxa ay u baahiyiin xoogaa waqti ah si ay u gaaraan gariirka raaxada kulul, laakiin waxba ha ka walwalin. Taasi ma ahan wax adag. Si qoto ah ugu bilow salaaxida iyo jirkeeda, sida gacmaha, qoorta, canjiraha iyo goobaha kale ee dareenka leh. Ha degdegin, hana iska waalin kuwa si aayir ah meelba meesha kale. Kadibna waxaad arkaysaa iyadoo ku xagxaganaysa simsana. Ragga waxay u maleeyaan in raaxada gabdhaha ay tahay in loo galmoodo oo keliya, kadibna sidaas ay gabdhaha ugu raaxeeyeen, laakiin sidaas ma ahan. Waxay iloobeen in raaxada faraha badan ay tahay tilaabada ugu horeysa oo uu dareenkeedu ku kaco. Haddaba si aad dareenka gabdhaha u kicisaan, ha isku dayina inaad horey uga tagtaan oo keliya, maxaa yeelay gabdhaha kama helayaan raaxo macaan. Raaxada gabdhaha ma ahan oo keliya salsalaaxid, shumis iyo in loo galmoodo oo keliya, sidoo kale eegmada dabacsan ee indhaheena waxay qayb ka tahay raaxadeena. Maxaa yeelay waxaan dareemaynaa raaxo aan caadi ahayn. U eega indhaheena si dareen leh, idinkoo muujinaya dareenkiina. Waxaa laga yaabaa inay xaaskaaga kaa rajeynayso oo ay jeclaan lahayd mar un inay aragto adigoo indhaheeda fiirinaya si dareen ku jiro.